baanu haynaa laba bilood buu jiray labada bilood uu xanuunsanaa waana uu ku dhashay afka saas waana uu ku dhashay waa u siyaadaya xanuunku insha Allah waxaanu ka barnaynaa in Ilaahay caafiyo muslimka wixii islaamana ay noo kacaan istaagaan insha Allah xanuunku waa ku siyaadeen waa u jeedaan inuu hadda indhaleeyahay indhihi hadda macnaha waa gab indhihi madaxuna waaba dildilaac waa u jeedaaneen insha Allah dhakhtar dhaqaatiirta aan u geynina waxayna yiraahdeen biyaha ku jira meesha wax laga qaban hargeysa oo sokaysay nagu dhaheen lacagtana hadda anagu hadeer ma sheeko kolleysa lacag yar maaha markii ugu yaraan 800 bayna dhaheen hadda halkaas xaaladuhu marayaan insha Allah waxaan rabnaa in loo gurmado oo wixii islaam ah ay noo kacaan insha Allah abihiis iyo eheladiisa waa wax muxtarayaal weeye waxa weeye gabadha waa lagu furay ilmaha abihiisna waana iska danyar waana heermiye hantidooda yareedna waa iska baxday hagar haatan macnaha didaal ma ay sameyn aniga uun bahadir inta midaa wadwad anigana dadaalku iga dhamaad waa ku dhash anagu kulli aragtidayadi waa ku dhash laba bilood labada bilood waa laga shaqeynay markii gabadha waa la soo qaaday wuxuu ku dhashay magaalada ku dhash umada waxaan ka codsanayaa waxtar insha Allah naloo kaco oo degdeg waliba sida marba marka ay ka horeyso in loo gurmado wixii islaam waxa weeye wiilka caafimaadkiisa lacagtiis macnaha wixii lagu daweyn waa dawo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin dadka muslimiinta waxaan ugu maanaaqnaa dhammaan meel kasta ay joogaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelaha ajarka laga dalba inay ka mid tahay dadka dhibaataysan waxba qabsan karin dadka baahan oo baahidu hayso dadka xanuunsan oo caafimaadka u baahan oo daryeelka u baahan sida hadda inii muuqata ilmaha yarka laba bilood buu jiraa madaxiisa iyo isaga madaxiisa weyn waa Ilaahay caafimaad ma waayin laakiin inagu inuu ku eegaya Ilaahay baa u gartay subhanahu wa ta'ala waxa la fadhiyana waa hooyadiis iyo ayayadiis hooyo aabisna in iska reer miir hadarana sida daraadda dadka muslimiinta waxa laga codsanaya ilmahaas boorama ugu sokaysa iyo hargeysa meelaha wax laga qaban karo lacagta ugu yar wax laga qaban karana waa $1 sida ay sheegeen ad sababana waa la yiri waa la geyn karaa marka ilmahaas u jeedaanin hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ajar kaga dalabno waa dhibaataysan yahay indhihi baa rogmay biyi madaxay galeen waa ku bateen meesha hadda waa xaafadda magaalada Garowe marka sida daraaddeed dadka muslimiinta waxaan u sheegayaa ilmahaas in degdeg wax loogu soo gaaro oo wax lagu qaado oo lagu badbaadiyo Ilaahay baa badbaado leh caafimaadkiisa waxaan kula dadaalno biyahaas oo madaxa laga shubo ayay rajadiisu maartay ku xiran tahay tiisu hadaysan gelin marka insha Allah ta'ala dhamaan muslimiinta waxaan leeyahay ma anfaqtu min shay'in fa yukhlifu qofkii wax la baxa maalmihii fadliga badnaa baa lagu jiraa maanta waa bisha 8 ay tahay yawm tarwiya bixina waa maalinka sagaalada Arafo la soomanaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa dhamaan dadka muslimiinta wixii wax la baxa oo miskiinka wax ku sadaqaystana in Ilaahay sadaqadooda u aqbalo wixii niyada ka jeclaan waxba hayna in Ilaahay wax khayr la baxan siiyo dadkaasina gurmad degdeg ay u baahan yihiin lambaradana insha Allah ta'ala waa inii soo qori doonaa waxaan inii soo qori doonaa website-ka oo yadis ama ayayadis lagala soo hadli doono annaguna insha Allah ta'ala waxayna lagu soo aadiyo oo keenayna dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa wixii diyaac aajil ah oo degdeg ah in dadkaas loola soo gaaro. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.